horta wuxuu ku yaallaa xasan beled xaafadda xamar jadiid khaasatan suuqa iyo xerta Sheekh Calmuuman inta u dhaxaysa ayuu ku yaallaa dabarkan dambe waxaa ku yaalla jaamacaddii Simad dhankaas kale waa waddadii warshadaha halkaana waa suuqa xamar jadiid dhankan kale dhankan waa xerta Sheekh Calmuuman halkaana waa laba dhagax waddadii laba dhagax ayaa dhinaca naga xigto iyo isbitaal macaani iyo dhankan kale Quracle iyo Baar Hilaac iyo dadka hore sida u yaqaanaanba masaajidkan jamaaca ahaan dad ahaan inta ka qayb qaadatay waxaan codsi gaar u sii dir lahaa dadka sportiska dhammaan sportiska waa dad wanaagsan quluubtooda oo fiican tahay qalbiyadooda oo fiican yihiin waxaan rabnaa maadaama hadda inta isoo wacday iyo inta isoo saacidiyo macnaha masaajidka wax ku darsatay u badan yihiin dadka sportiska iyo dhammaan dadka muslimiinta waxaan rabaa dadka sportiska meel walba ay joogaan inay nagala qayb qaataan haddii aan lahayd waxaa isoo dhiirigeliyey jaalidii Finland oo isoo waceen qooje imad iyo Saciid Kaysaney Maxamed Axmed dadkii akhyaarta xagga joogo dhan London waxaa iga soo wacay Cabdi Axmed rag fara badan oo halkaas joogo oo jaalid Cabdullaahi Cali dhammaan macallin Sakriye waxaa haddana sugaa waa Sweden iyo dadka jiro Finland waa soo sheegay Norway iyo Mareykanka iyo Canada dadka ehelka sportska ah dhammaan waxaan rabnaa in la dhaho masaajidkan waxaa qaybta ugu weyn ka qaatay dadka sportska maadaama ay yihiin dad wanaaga jecel qulubtooda ay fiican tahay jirkooda oo caafimaad qaba iyo maskaxdooda haddana waxaan rabnaa inaan aakhiradeena shaqaysano maanta ani hadda waxaan joogaa xamar garoon waxaan ka dhiibnaa bishii $10 maalintii $10 waa 2 kiisho shimita adoo ku gado oo ku fiisid ayaa kaaga khayr badan marka khayrka iyo isku wadna insha Allah tacaala waana mahadsantihiin dadka sportska iyo dadka islaamka ee samaha jecel ee meel kasta joogo ee nagala qayb qaatay masaajidkan dhismihiisa waana ku mahadsantihiin sidaan nolol soo xiriirtay sidaan noo caawisan haddana waxaan idinka sugaynaa wax badan aan idinka sugaynaa insha Allah tacaala waa masaajidkii xasan beled ee xaafadda xamar jadiid aan horey idinkugu soo gudbi jirnay alxamdulilah dhismada heer ay maraysay shalay hoos aasaaskii birtii shubkii isku xirkii dariishadii daaqadihii oo saas loo wareejiyey halkan aan taagana waa jaranjaradii oo dabaqii labaad laga fuulayay shalay idinkaa soo dhiibateen khayrkan idinkaana ayaa macnaha nagu dhiirigelisay inay masaajidka uu saan noqdo alxamdulilah maanta laakiin maalinba maalin oo kasii baahi badan yahay hadda sidan ayuu qaawan yahay wuxuu u baahan yahay shub shamiito bir dhagax jaay wax walbaa loo baahan yahay marka ilaahay amarkiis qof kale aan wax ka sugaynana ma jirto oo hay-ad ah ama cid kaleeto khaas ah waxaan dadka ka sugayna waa dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan marka walaalaha muslimiinta ee khayrka jecel ee meel kasta adduunka ka jooga ha joogaan dibadda ha joogaan dalka qof walba oo dhiibto shay ka mid ah taaka lagu dukado waa sadaqad jaariya oo weligiis u soconayso intuu masaajidkan dhisan yahay masaajidkan ma ahan mid hadda la gaday ama la diyaariyey 71kii yaa la aasaasay marxaladba marxalad ayuu soo maray maanta waxaan rabnaa inuu mid fiican oo kasii fiican xilliyadii hore waxaa dadka ay jameecada ay macnaha ay ku arkeen kuleel iyagoo quraanka ku akhrisan waayey iyagoo sidoo sii gaabtay marka guddigii xaafadda way isku raaceen in la jabiyo ilaahay dartiisna lagu jabiyo oo la dhiso haddana meeshaan ayuu maraa meel fiican ayuu maraa marka maadaama ay intaan marayso waxaan sugnaaba waa saacidaadiina dadka muslimiinta meel kastoo ay joogtaan taaki kamid ah taakada inta lagu tukana hal sijaayado lagu tukado qofkii noo gado ama noo suubiyo waxay la mid tahay sadaqa jaariya weligiis u soconayso abadan marka walaalayaal aan ka qayb qaadano khayrka khayrkaasi waa mid noo soconayo waalidiinteenna iyo annagaba marka waana ku mahadsantihiin sidaa shalay codsigayga hore usoo iiga ajiibteen oo soo gudubsideen qof walbana qof allaale qofku wixii soo dhiibto waatana meeshaan dhismaana ku socotaa sidaanaan loo gelinayaa waana ku mahadsantihiin walaalayaal inta nagala qayb qaadatay oo meel kasta joogtana waa ku mahadsantihiin inta aan sugayna waa ku mahadsantihiin walaalayaal waxaan idin sugnaaba waa saacidaadiinni akoonnada waxay ku qoran yihiin iyo meeshay ku qoran yihiin telefoonka dadka laga helo khaaska ee meeshay ku qoran yihiin insha Allah qof allaale qofkii nala soo xiriirinay sidoo nagula soo xiriiray oo dar Allah ayaan ugu shaqayn doonaa hadduu ilaa yiraahdo waxaan sugnaabo waa saacidaadiina iyo masaajidkii oo kor u kaco marba heer meeshuu marayna waa idiin soo duubaynaa insha Allah waan idiin soo gudbinaynaa hadduu ilaa yiraahdo waana ku mahadsantihiin walaalayaal sida aad macnaha noo tixgeliseen qof walba oo videogan gaarana waxaan ka codsanaynaa inuu sii share gareeyo inuu like saaro inuu macnaha oo ku dadaalo sidoo u faafi lahaa khayrkan oo walaalihiis kale u gaarsiin lahaa waana ku mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka walaalayaal masaajidkan sida u jeedaan waxaa ka socoto shaqo qabyo ah oo bilow ah shaqadiisa ma dhawo laakiin ilaahay waxaan ku xamdinaynaa in walaalo badan oo muslimiin badan inay masaajidkan soo garab istaageen hawshii waa la bilaabay laakiin intii badneed way dhiman tahay waxaa dhiman shubkiyaa dhiman
waxaa dhiman gogol dhigiisiyaa dhiman daaqadihiyaa dhiman albaabadiyaa dhiman wax badan oo waxaa dhiman uu u baahan yahay masaajidkan sidaa ujeedaan cabirkiisa 25 waa masaajid aad u weyn waaye ugu yaraan waxaa ku dukanaysa waana 2 dabaqeyna laga dhigaa soo maasha allah marka hoos iyo kor waa lagu dukan doonaa insha allahu tacaala khayrkaas iyo dadka muxsiniinta ah ay soo dhiibtaan lacagtooda waxay u noqon doontaa sadaqa jaariya waxay u noqon doontaa sadaqa u socoto naftooda iyo waalidkood waa ogtihiin dadka qurbaha jooga oo masjidkan inta badan uu ka socdo meelaha aan ku sugannahay waxaa ka jira dhibaatooyin badan waa ogtihiin maalmahan carruurtii xataa Minneapolis waxaa ka jirto in drugs ay isku dilooyaan ay gacmahooda isku dilooyaan ay xabado isku dilaan ay xabsiyada ka buuxaan carruur aan ku dhalnay meesha aan ku haysanaa aan rabnaa inaan ku korsanno oo aan ku noolaano si carruurtaas ay noogu badbaado sadaqada waa gaashaan dhibaato kugu soo socoto carruurteena si ay noogu badbaado qayb inaad ka noqotaan khayrka socdo annaga waxaan maanta jaanis waxaan u helay nasiib inaan ku sugnaado magaalada muqdisho oo aan wax walba oo khayr ah aan idiin soo gudbiyo si adinkana ay jaanis ah uga faa'iidaysataan ay idiin noqoto wax kale isugu imaan walaalkii waxaan isku baranay sportis banooni aan isku baranay qabiilkiisa ilaahay ilaa ma aqaano asagana magacayga saddexaad ma yaqaano marka waxaan isugu imaanay annagoo sportiga mar walbo qabiil horta mare midda kale khayraan isugu imaanay maanta khayrkii ugu wanaagsanaa oo qof bini aadana oo ku fikiri jiray ayaan isugu imaanay waa masaajid waa beydkii ilaahay in aan qayb ka noqono dhismihiisa masaajidkan shub u baahan yahay sida ujeedaan hoos waa la soo shubay hadda birahana ujeedaan waxay u baahan yihiin shub in la saaro jaygii shamiitadii armaayadii wax walba u baahan yahay qasab ma aha in aad wax badan soo dirtid waxaa samayn kartaa wax yar oo waxaa qaadan kartaa qayb ka mid ah qofka uu ku dukanayo qaybtaas sadaqadeeda inaad la soo baxdid ha noqoto $5 ilaa ay $1,000 haddaa la soo baxdid intaas waxay kuu noqonaysaa sadaqa jaariya oo aan mid ula baxda waalidka ha isdhihi sadaqada aad baxsanaysid waa wax yar ma jiro hal bulukeet haddaa ku darsata masaajidkan way kuu soconaysaa adiga iyo waalidka marka walaalayaalow waxaa ku sugan tihiin waddan oo nabadgelya ku haysataan carruurtiina caafimaad ay haystaan waxbarashay haystaan nimca ku jirtiin waa ogahay oo ku jirtiin waa anaa ka imaaday marka taas adinkoo fiirinaayo dhibaatooyinka dhinac socdana way badan yihiin carruurtiyaa dhibaato ka taagan tahay waddan iska dhib badanaan joognaa marxalado badanaa lagu jiraa cudurraha socdo waxaasoo dhan waxaa kaa badbaadinayo sadaqada iyo khayrka ilaahay aan la baxdaan marka walaalayaalow anoo og inaad baxsanaysaan dadka inta badan igu xiran ay yihiin dad ahlu khayr ah oo igala soo shaqeeyay arrimihii ramadaanka arrimihii qalliinka aan soo samaynay dugsiyadii aan soo dhisnay waa ogahay dad aad u khayr badan ah aniga iigu jira meesha hadduu ilaahay yidhahda arrintaana waa arrin aad muhiim u ah walaalkay sida uu idiin sheegay waa in aad garab istaagtaan oo masaajidka aad ma arkinoo wax gurigiisa ninkaan idinkama dhahoyo ii dhisa waxay sii idima dhahoyo wuxuu idin leeyahay war ajirka aniga aan raadinayo qorraxdaan aan u taaganahay kulaylkaan aan u taaganahay marxaladaan aan ku jirno adinkana qayb ka noqda oo lacagtaas aad shaqaysateen qayb ka mid ah waxaa laga yaabaa akoonnadiina Wells Fargo inay buuxdo US Bank inuu lacag kugu jiro wax badan ha bixinina wax yar oo ka mid ah akoonkaas lacagta kugu jirto soo bixi waxaana ku baxsanaysaa Jamaica ma siinaysid anigoo goodaxana ma siinaysid waxaa siinaysaa aad ku darsanaysaa akoonkii iyo masaajidka ilaahay oo adduun iyo aakhiro aad ku faa'iidaysid walaalayaalow videogan ha sahalsanina haddii aad sheer garaysid oo gaaro qof kale oo qofkii kale oo aniga axsaab aan ila ahayn sadaqa oo la soo baxo waxaa la mid tahay ajirkeeda inaad heshid marka ha sahalsanin videoga horta sheer garay intaadan tagin xawilaadda intaadan lacag soo dirin videogan sheer garay si ummadda kale u gaarto oo meeshaas ma arkin oo sadaqo aan ma arkin oo masaajidkii aan dhisno waxaana idinla socodsiin doonaa step by step masaajidkan maanta asoo qabiyaa u jeedaan berri asoo shubka la saarayo ama saa dambe ama maalinta ilaahay noo suurtageli oo lacagta aan helno aan idiin soo gudbin doonaa masaajidka oo dhismihiisa socdo masaajidkii oo dhammaystiran asigoo lagu dukanayo insha allahu tacaala waa la socon doontaan waana taariikh ha ka harin taariikhdan socoto khayrkan socdo masaajidkan 1971 la dhisay soo ii sheegay walaalkii xaafadan waa laga wada yaqaanaa khayr uu soo wacay walaalkii khayrkaasaan u imaaday adinkana waan dareema khayrkaas jeceshiin waxaan ku wareejinaa walaalkii Jamaica xoogaa
واسي هاللي كرا عبار دون وان وضي كرا ورك لكن ور waxaa ka muhiimsan in qeyrka wax qabadka kaalmo u noqotaan beedka Ilaahay insha Allah walaalkii aan ku wareejina oo noo soo qatimay insha Allah ta'ala klibka hore walaalkii aad fiirsateen warbixin guud oo idin siiyay anigana waa sii xoojiyay adinkana waxaan idinka doonaynaa in sida aan idin soo gudbino qeyrka dad ahlu qeyraatihiin إن شاء الله تعالى أسود دكتان كسر كله هرمرة إن شاء الله ولكن جماعة إن شاء الله وما سنتين سدوا ولكن أنا حسن جودة حد كوش جواي ورمد إنه قف كستنة ووحو هرمر صدق قف كي مساج السوء الدنيا ذا كل السوء إلهي جوري جنايو لسا كاس دول كاس الله نقول ترى جوري جناد إلهي ولسا وقت إلهي دور على كان نقول وحول بوابه الشباب مرك وارون مساج كان وتبعت نيكودي على أساس جينجدو أها مرك هر أوضو أها أودي كدبدين أنا سيدا عبيه يشجع أوضو أها أودي جينجدين نقطة جينجدي لقى حسب بدي الشيء لقى حي وقابتي دتي إسلام كهاي وكنت كوايين قابنان دراديد يقولين دبدين وحنا سودية وحنا كنت الشني هدي أنا حافظ أحمر جديد دتك جوج أهل كوها مساجد كان وحنا كنت الشني إلا مساجد كان لا دير يؤسي جماعات ويا شو وصلنا قد جماعة ديسي ولود كذا وحافظان كدوات سوقة أيوم مساجد كيالا هل كانوا حكيالا هرجع على مقدار شيء من كانوا حكيالا وده فرياش أنتوا ده حسوا مساجد كذا مساجدكم يالا هي حكيالا حسن عروس ضدك أحمد جيد جنا ضدك حافظ كنا يقان أكتي سايكيالا مركا أنتوا ده حسوا مساجد من كانوا حكيالا مع العلو ذات الأهيال كاس كيالا مساجد كيالا أنتوا ده حسوا مساجدكم يالا ضد كان هذا مساجد سيادة هل كانوا يحبوا حرم وحيد قلال المساجد فيه وقابتين قرآن بسوح السمايين الحمد لله حتى وعنوها كينا المساجد فيه عن الاسنو وندمينو انت اسمحوا اسكوها لينين ما اهين هيئة اسكوها لينين ما اهين شخص خاصة واسكوها لينين ويدين قصة لينين وحيد ضدك مسلمين اهلكو غيرك انو نور ديسان نقول ساعدان عنا كان عن كود دالنو سيدي معناها اماندي نور ديبي قف والبو اسلام وحا اوغاتا هداد ما انت $100 سو ديبت قلت له هذه جماعة أما حسن قاضي بقول كان مساعدك يقولها عنيق عن قاتو أما قفكي أو كلا قاتو غير كاس وكون جرا عليك غير كاس وكون جرا قفك هذا وسو ديبتي واحد أني يستي غير كده وكون جرا لكن قفكي قاتي يا آخرك ودم قبو قف آخردي سجدنا هنا أدون كان ما أنت لفي قرين مجرو مركي إلهي هنجا أقبل جاينا هنقدو إن واحد سو ديبتان سيدا عبد سو ديبتان غير كه هذا كوكو دار هذا كوكو جرينو سيدا كوكو بلان قادني هذا كاجا كوكو صبنو إلهي نقدو وتعصرته وحويان قفك إلهي هدية حديث مركي الحمد لله واحد كسبنا وسعادتنا هداد ما أنت فيديو كان شركريسان أو حول بهشان أو نصو ترتان اسمه فري شبك وان شبهنا ساجد سيدا أسعودنا وعدي سو قد بيننا مركي ولا الله غيرك جعلوا ملك استعد جوكتان عدي كدافعها ملك والباك جوكتان أنا وحنا هاي نين سبورتس نكانوا وان سبورتس نحكي اسمه برد ما عنده وقت مركوي ماذا عيان جاليد أو UK ديليس أو إماتي جاليد يبقى إماتي أنا أقول ديران إسبراني كوب كلت إسكوبراني مركا أنا واحد نروح أركي فيديو وأسوق لنا مساجد كنا ودها غيرك كلها فينا مركا ولا على يالو سيدا عن سبورتس سبوح رنا هي أو معناها برشة سبوح رنا هي غير كنا سبوح رنا waxaan taas u leeyahay dadka sportska sida sports ugu xirnay qayrka ilaahina isugu xirnaano maanta adduunyada ma ka tagayna meeqa laacibiina meeqa oo celebrity ah tagto waa wada tagan annagana wada tagayna dadkii ehelku ahaa misaajkan soo asaas wada tagan aakhiraan oo dambeeyay gurigi ilaahay inuu noo dhiso janno ugu dhisane waa waxa aan ku raadsanayno misaajidka ilaahay beedka ilaahay qayrkan aan ka faa'iideysano ilaahay qofku haleelisiiyana waa nimceystay maanta haddaan awoodo maanta qofna fiidoogan ma soo gaarsiiyeen waxna ma soo gaarsiiyeen aniga dhisi lahaa wada qaadan lahaa waa khayr loo kala doorto marka ummadda u dhex yaallaaye wuuna qaawan yahay masaajidkaane soo qurxiya dharna u soo geliya waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatuh.